maalintay taladaada xumi ku urto muusow cidna ha eersan ee adkayso baan ku leeyahay. magaalada Hargeysa waxaa si wada jira ugu hadlay siyaasiyiinta kale Maxamuud Xaashi Cabdi, Maxamed Aadan Qabyo Tire iyo Maxamed Dimbeel. waxay si weyn uga soo horjeesteen shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee dhawaan soo gabagaboobay. siyaasiyiinta oo hadalkooga sii wata ayaa waxay si weyn u dhaliileen hogaaminta madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. ugu horreyn waa kan siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi oo halkaasi ka hadlay. arrintani waa dhacdo ugubka ah xisbiga kulmiye. haddii madaxweyne Muuse Biixi u arko doorashadiisa gudoomiyaha xisbiga kulmiye loo doortay guul xisbiga kulmiye u soo haygatay, waan ka aragti duwanahay. waxaan aaminsanahay inay tahay guul darro xisbiga kulmiye guulgal u yahay maanta. waxaan leeyahay saaxiibkay madaxweyne, waxaad tahay nin weyn oo aan gu iyo garasho u dhinayn. waxaad tahay dhowr iyo 70 jir. nabigeenu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu yidhi ina acmaara ummatii maa bayna 60 wa 70 wa aqaluhu man yajuusu dalika. ummadayda cimri dhererkeedu marka la isku celceliyo waa 60 ilaa 70 inta u dhaxeeya. in yar baa halkaa dhaafisa buu yidhi, dhowr iyo 70, dhowr iyo 80, dhowr iyo 90 boqol. waxaad ku jirtaa alle geladii intii farkutiriska ahayd ee ka gudubtay ama dhowr iyo 70 oo cimrigoodu dhaafay ayaad ka mid tahay. maanta waxaad tahay cadceed casar joogta, cimri kuu dhiman iyo caqli kuu dhimanina ma jiro. mansab kuu hadhayna man jiro oo aad higsanaysaa madaxweynihii qarankaa tahay. waxaad maanta garan weyda garan maayo goortaad garan doonto ama gaari doonto. waxaan leeyahay muusow, halkani waa halkaad jannada ka geli lahayd haddaad noqoto imaam caadila oo ummaddiisa ilaahay dartii si daacadnimada ugu adeega. sidoo kale waad ku naar mudan kartaa haddaad ammaanada dayacdo iyo mas-uuliyadda aad hayso. madaxweyne, maanta adiga oo da' oo jooga aakhirul cimri waa nasiib darro weyn in lagugu tuhmo inaad ku foogan tahay adduun urursi iyo dhulboob. muusow saaxiib, cimri tegay ceeb laguma sagootiyo. haddii dareenkaa dadkaaga isaga baxay dacal iyo daraf uu run yahay, alle ka cabso oo u toobad keen oo tubta toosan qaad oo soo baydh bi waaye soo baydh. dhinaciisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay siyaasiga Maxamed Aadan Qabyo Tire. shaarkii kulmiye ee quruxda badnaa ee madaxweyne Siiraanya uu ku wareejiyay Muuse Biixi, waxaan halka ka sheegayaa inuu maqluubka u xidhay madaxweyne Muuse. xataa tolmihii uu ka bedelay qaab jeebadii halkan ku taalay inuu bartan ku dhigay. maantana aad arkaysaan halka uu xisbiga marayo in la yiraahdo xeerkiiba wax laga bedelayaa, hoggaankiiba wax laga bedelayaa, xogayiba nominated ah. cid la tartami mayso, ciidan anigu farta ku fiiqunba. xataa madaxweyne ku-xigeenkii laga saaro hoggaankii xisbiga oo elected oo madaxileedkiisii leh. madaxweyne Muuse, maalinta ay ninka ay isqabtaan maalin ama wax is yiraahdaan ma iloobiyo. waxay noqotay dawladdeena iyo xukuumaddeena one man show. haddii aad ku soo 10 ama 20 ama guddiye hadday soo gaadhaan go'aan ma soconayo ka Muuse mooyaane ma soconayo. waxaad ogeydeen raggii halkan ku ahaa cayaanta ku ahaa ama hadday tay ilaa qaaxo ay saaxiibada ahaayeen, qaar baanu xabaalahoodii tegin sida Xasan Guuro kale. ninka maalin wax ka yidhaa daankaa dambuu dhigayaa madaxweyneheennu, cidna ma cafiyo. waxaad moodaa anuu garan maayo dee madaxweyne ummadda ugu sarreeya oo qamuunyoonaya oo cadhaysan. waa taariikhda markii inoogu horreysay. gaaladu waxay yidhahdaan qofka noocaas oo kale waa saadiiska waxay yidhahdaan dadka had iyo jeer cadhada badan leh. waxaad arkaysaa wax yar oo fudud oon wax weyn ahayn
ayuu big issue noqonaya. ugu dambayntii shirka jaraa'id waxaa ka hadlay maxamed dibiil waxaanu yidhi waxay ku dambaysay wax loo yaqaano tasfiya sifayn sida ka soo baxday gudoomiyaha muuse ama madaxweynaha muuse sida ka soo baxday hadaladiisa in uu yiri sifaynta xisbiga oo la sifaynayo xisbigii maxaa laga sifeynaya sifayn maxaa u naqaanaa sifayn waxaa u naqaanaa والله وذا كان تشرح معي في Soomaaliya شرح معي لكن waxa la sifeynaya maxay qof kasto oo soo eega qof kasto dareen leh qof kasto jaleeca qof kasto oo wax sheega qof kasto oo xineen leh in la yiraahdo hal laga sifeeyo maxay xisbigii waa guuldaro weyn oo ku timid maanta kulmiye waa hadalkii aan hore u lahaa ee aan lahaa ورور فربضن أما ولا فربضن ما أنت أنا جاي هيا كل مية وحنا المتدريق بربر إنه عكت ساري وهو أكادي حسبية اللي قلت لي حسبية أنت وذاك عنك صومالات مو أكاد صعبينتي إيه محو حقاب كل هنشرين بعد مدة إنه ليه هي باتري كوسان محمود تلفيشة كسان هرجيسة